بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدين سلام أصحابتي قالقة isku soo laabasho wanaagsan. Soomaaliya meel walba joogtaan waxaa idin rajeynayaa nabad iyo caafimaad. waxa ugu qaalisan oo qofka haysto waxa waye caafimaadka iyo nabad, labadaas waa hadda labadaas haysto waxa waye noloshaada eber waa. qof walba oo xanuunsan ilaahay caafiyo, kii caafimaad haystan ilaahay ha u siyaadiyo. maanta maxaan ka hadlaynaa kufsiga oo aad bulshadeena ugu batay. maha inuu ugu batay oo jiri weligiis oo jiri kufsiga weliba caruurta la kufsanaayo aaday u jirtay. laakiin hadda waxaa waaye adduunkii wuxuu noqday hal gobol. social media wuxuu sahlay in la ogaado meel walba waxa ka dhacaya, in dadkii oo dhan ay helaan warkii ay isgaarsiintii ay u sahlanaato ayaa fududey. ama inuu hadda wax cusub yahay, wax cusub maaha, weligeed ayuu jiri waana jiraya haddaydan ka dhiidhin oo aydan dhihin ama guri walba amba hooyo walba amba aabo walba aanu caruurtiisa mas-uuliyadooda si sax ah aanu u qaadin. waxaa waye waa soconaya. qofka weyn iyo qofka yarba in la kufsado waa qalad, labadaba qalad waa. laakiin waxaan aad u cambaareynaya mawduuc aad i xanuujiyey. hooyo cunugeedii soo farxumeeyey la dilay, yani wax aad u xanuun badan waa sooma. marka kufsiga soomaalida gabdhaha oo kaliya ma kufsadaan, wiilashana waa la kufsadaa. wiilasha dulmanayaasha qarsoon waa wiilasha mar walba waxaa la arkaa markay weynaadaan inay wax dulminayaan. xataa dulmiga ay dadka dulminayaan oo dhinaca dumarka gabdhaha ay dulminayaan, ama walaalihiis ha dulmiyo gabdhaha ama xaaskiis ha dulmiyo, dulmanayaal waa ayaga naftirkooda. dulmanayaal waay ayagoo wax dulminaayo may haddana dulmanayaal yihiin inay kugu soo dhacdaa laga yaabaa. haa, waxay dulmanayaal u yihiin tarbiya qaldan oo lagu soo tarbiyey, oo la dhahay adaa wiil adaa maxay ahayd xoog leh, adaa xataa inaanu cabiri karin ee wiilkii maxay ahayd oohintiisi inaanu oohin karin ay tahay ceeb, inaanu muujin karin ee damqasho, inaanu cabiri karin dareenkiisi oo leeyahay wiilaa tahay, adiga ninaa tahay, nin ragaa tahay, ma samayn kartid. kaasuu dulman u yahay. tarbiyadaas oo qaladka ayuu dulman u yahay. mala soo barin inuu asaga bini aadan yahay, mala soo barin in nafsadiisa ay leedahay dareen, in naxariista aanu ka tegin, in yacni naxariista aanu ahayn wax jilcan oo qofka asagoo adag uu muujin karo naxariis. mala soo barin in gabdhaha maxay ahayd walaalihiisa oo u naxariisto, oo hoosha la qabto. mala soo barin. waxaa la soo baray walaashaa waa ilaali, waxaa la soo baray walaashaa waa keen hadday banaanka aad. laakiin asagii dulmanuu noqday. dulmana muxuu ku noqday? wiilaa tahay adiga bax maqnow waqtigaa doontid imo. taas maxay keentay marka? wiilkii inaan laga warheynin, khaasatan markay caruurta ay yaryar yihiin. tan kale oo markuu qofka weynaado oo wax uu dhibaateynayo waxaa waaye dulmano kaleento wuxuu u noqonayaa saaxiibo xun. mararka qaar inuu gacanta u galo oo dulmano kaleento u noqdo uu saas suuqi ku galo. marka kulligeena maxaa naga saaran mas-uuliyad inaan hal dhinac kasoo wada jeesano, oo guri walba qof walba qofku mas-uuliyadda uu ka yahay inuu horta ka bilaabo. bulshada markaasa loo gudbo. qof walba gurigaaga adiga adka wiilkaaga soo bar sax, tarbiyad sax ee bar, gabadhaada bar. gurigaaga mas-uuliyaddiis adaa lagu weydiinaya beri marka ilaahay hortaagan tahay subxaana watacaala. waa inaad mas-uuliyaddii siday tahay aada gudatid, ood cunugaagii aad ka warqabtid, ood cunugaagii aad ilaalisid, oo aadan banaanka kusii deyn, oo aadan dhihin wiil waay ha iska maqnaado, oo aadan dhihin intuu ku maqan yahay. waa inaad ogaatid cunugii muxuu soo qabanaa, waa inaad la sheekeysatid markuu cunugaaga u imaado, wiil iyo gabarba. laakiin dadku waxay u maleeyaan wax cusub in wiilasha la farxumeeyo ee hadda bilaabato. weligeed ay jirtay, weligeed wayna jiraysaa haddaydan ka dhiidhin, wayna jiraysaa haddaydan qof walba oo idinka mid ah uusan qaadin mas-uuliyaddii ilaahay saaray si sax ah. way soconaysaa. caruur dayacan maalin walbo waxaa waaye barnaamijyo ama mawduucyo adig aad kuu damqinayo waa arkaysaa, oo maxay cajiib ay kugu noqonayso, iyo maxay ama kaag oo adiga naftirkaaga waxaa waa qalqal nafsadeed ku gelinayo waa arkaysaa oo aad kuu xanuunjinayo. marka cunugaaga hooyo haddaa tahay adaa mas-uulka, aaba haddaa tahay adaa mas-uulka. xataa haddii aabaa uu baxo, anaga aabayaasha waxaa waaye samankan
hooyadaa mas-uuliyadda qaada. guryo badan waxaaba aaba ma walaam ama ha dhinto kii dhinto waxawaaye wuxuu leeyahay cudurdaarkiisa ilaahay oofsaday, ilaahay naxariistiisa jana allah sii. kan joogo oo maqan cudurdaar ma lihid, adigana beri waa lagula xisaabtamaya. haddii ay dhacdo inaad hooyo keligeed aad tahay oo rabeynaysa amba korinaysa caruur, ha dhihin aniga caruurtii maxaa la cunto siintoodii aan ku mashquulsanaa, cuntadoodii aan usoo shaqaynaa ayaan ku daalanaa. ha iloobin aasaaskii iyo tarbiyadii, ha iloobin inaad qoodisid waa garatay, inaad usoo xamaashid waa garatay, laakiin ha iloobin taas waxaa kasii weyn inaad la socod cunugaaga dhaqdhaqaaqiisa. waa inaad ogaatid xaguu aadaa, yuu la saaxiibaa, waa inaad la socotid, waa inaad la socotid ilaa uu ka weynaana aadan marnaba ka tegin. cunug ha sii daynin habeen haddii la gaaro amba maalin. horta maalintii isha waxeeso inta badan habeenkii ayay u badan tahay in caruurta maxay ahayd la qabsado oo maxay ahayd la afduubta. habeenkii u badan tahay mugdiga. maalintii xataa waxaa hadda cunugaaga ay dhacda inaa wax u diraysid banaanka fiiri. hadduu cidla yahay adiga bax, adaa qof weyne bax, doono caajiska iska daaya. hooyooyino caajiska iska daaya. waxaa cunuga aa leedahay waxaas ii doon anaga soomaali waxaa waaye oomadaas dukaankaas iiga soo qabo, saabuunkaas dukaankaas iiga soo qabo. adiga bax, adiga doono. caafimaadoo kuu yahay dhaqdhaqaaqaas. cunugaaga ilaahay ha ku ilaaliyo. guri ma ku celin karti cunuga, laakiin waqti ha lahaado, waqti xadidan ha lahaado. waqti uu ciyaaraayo ishaada heeso meesha uu ku ciyaaraayo. waa inaad la socotid, waa inaad kor ka ilaalisid, il waxaa waa ilma ilaaliso. laakiin adiga waajibkaaga haddana aad ilaalisid cunugaagii waajib waay. marka ilaahay awlaad hanoo xifdiyo. intaan haysanin ilaahayaa siiyo. cunug waxaa qof walba qofku ka caruur badan yahay waa ka mas-uuliyad badan yahay. qof walba qofku ka caruur badan yahay aada ugu mas-uuliyad badan yahay. macnaheedana maha caruurta inaad dhashid oo keliya, waa inaad dhinac walba aad ka ilaalisid. dhinac walba haddii duruufaha iyo danta aanay ku ogolaanin oo aadan mas-uuliyaddooda qaadi karin, waxaa waaye jooji inaad keentid adduunkii oo aad dulmisid. xaq uma lihid. ilaahay awlaada idin xifdiyo kulligiina. laakiin mar walba waa inaad ka dhiidhisaan. dadka qaar waxaa haddii kufsi lasoo hadal qaado, dad waxaa jirta group annaga soomaalina uu dhex jiro, markii kufsi laga hadlaayo way diidayaan in la sheego. xataa way diidayaan. way u diidayaan. dad diidaya jiro waxay kuleeyihiin waxaas anaga dhaqan ma u lihiin, waxaas gaalaa laga keenay, waxaa waay waa la qarinaya. wixii ma la rabo in la ogaado, wixii ma la rabo in wax laga qabto. haddaan boogti aan la qoodin oo aan see loo dhayaa, see kureysanay boogta, waa inaad qoodid, waa inaad nadiifisid, waa inaad gudaheedii aad soo saartaa wasaqda ku jirto. marka mujtamacii haddaan rabno inuu noqdo mujtamac caafimaad qabo, waa inaan ceebaheeni waa inaan ogaanaa. weliba aan soo saarnaa ceebaheeni, aan soo bandhignaa. waa u qarinaynaa. qof bini aadan ayaa xanuunsanaya. qof bini aadan oo caruur amba ha weynaado amba ha yaraado. qof bini aadan waa ool noocuu doon ha ahaado, rag ha ahaado, dumar ha ahaado, noocuu doon ha ahaado lagu xadgudbaaya. jirkiisii la qasbaaya, haddana lasii dilaaya, haddana maxaa ahayd aada dhiiggiisa loo daadinaya. waxaa lagu leeyahay kufsiga maxaa looga hadlaya? kufsiga weligee waxaas been waay. dadka dhahaaya waana lasoo kufsaday been waay. dadka dhahaaya cunugaa la kufsaday been waay. dadka dhahaaya kufsiyaa jiro, dadkaas dhahaaya ayaga laftirkooda waxaa waa in fiiro gaar ah loo yeesho. waayo qayb waxay ka yihiin mujtamacii oo maxay ahayd dulmiga fidinaayay ayay qayb ku yihiin. xataa haddii aanay ayaga falka geysanin, afkooda ayay ku caawinayaan. waxay ku caawinayaan in la qariyo faldambiyeedki. waxay ku caawinayaan amba ay support gareynayaan inaanay soo muuqanin dadkaas dambiilayaasha, inaan bulshadii aanay arkin, inaanay bulshadii aanay wax fahmin. laakiin mar walba waxaa waaye xaq iyo baadil waxaa waaye jin ma noqonayo. mar walba xaqa waxaa waaye feeruu ka dilaacaya. xataa haddii si walba loo qarqariyo ma qarsoomayo. ilaahay subxaana watacaalana raali ma ka noqonayo. inaad adoomadiisa aada dulmisid raali ma ka noqonayo. marka wax walba oo aad awoodid samee. guri walbo hooyuu leeyahay, aabuu leeyahay, idinkaa mas-uulka ah. haddii aabihii uu maqan yahay, haddii hooyadii guryaha qaar hooyaa maqan aabaa joogo, waa inaad mas-uuliyadaadii aad qaadaa sida ay tahay. ood xisaabta aad ku darsataa in ilaahay uu kugula xisaabtamaayo caruurtaada, oo inaad ilaalisid ay tahay waajib adiga ku saaran, oo adiga aad mas-uuliyadooda aad leedahay. qof walbana la weydiinayo wuxuu mas-uulka yahay marka ilaahay la hortaagan yahay subxaana watacaala. ilaahay ma nagu ceebeeyo mas-uuliyadahana saaran. ilaahay subxaana watacaala idinkana saas oo kaleento ilaahay ha idinla garab galo. laakiin foojignaan cunugaaga waa inaad ka warqabtid intuu aadaa. ha dhihin wiil waay ha iska maqnaada, ha dhihin
wiilasha dhibaatooyinka wax u keenayo waxaa waaye wiilkii oo ma laga warqabaayo gurigii ma la dhahaayo hebel muxuu maqan yahay xataa muxuu kusoo daahay ma la tabaayo waayo waxaa la siinayaa xoriyad mutliq wiil waa iska maqnaado wiil waa iska maqnaadadaas waxay u keenaysaa mararka qaar inuu cadow helo waayo cunugii gurigii ma laga tabaayo ma la dhahaayo wiilkayga waa soo daahay ma la dhahaayo ma la ordaayo iyow ma la raadinayo mar waxaa lasoo baraarugayaa waqtigii u dhammaadayaa lasoo baraarugaa marka mar walba wixii qoran way qoran yihiin laakiin qayb ka mid ah bulshadii ayagaa gacan ku leh khaasatan waalidiinta taxadirka badiya caruurtaada waa inaad isha ku haysid caruurtaada waa inaad ka ilaalisid qof walba ka ilaali kuwa kuu dhow ka ilaali maaha keliya inaad ilaalinaysa kuwa banaan kuwa kuu dhow mararka qaar dad qaraaba inay guriga kugula nool yihiin laga yaabaa kuwaas isha ku haayo waana qalad horta qof qaraaba ah inuu guriga kugula noolaado qof walba noloshiisa asaga hadda barto qofka haddaa caawin kartid caabi adduunka waxaa waaye adduunkii maaha dad fiican way jiraan dad xunna way jiraan laakiin mar walba adiga maxaa mas-uuliyadkaa saaran yahay waa inaad tiraahd aniga waxaa mas-uuliyad iga saaran caruurteeda ilaalintooda waxaa mas-uuliyad iga saaran gurigeyga xifdintiisa aniga muhiimada koowaad waxaa waaye familkeyga yaa waaye caruurteeda waaye xaaskeyga waa inaad tiraahdaa nin tahay caruurteeda waaye saygeyga waaye mas-uuliyadda koowaad iyo muhiimada koowaad ee tahay inaan ilaaliyo waa inaad tiraahda haddii aad tahay adigana xaaskii inaad tahay waana ku mahadsan tahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisay video xog intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaa